السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada daawadayaal waa mar kale iyo walaalkiin Maxamed Cabdiraxmaan. Ilaahay markuu kala xukmiyo qadqigiisa, kuwii janno u shaqaystana janno ayuu geeyey, kuwii naar u shaqaystana naar ayuu geeyey. Waxaa naarta jahannamo dhexdeeda ka qudbeen doona Ibliis oo waxaa maqli doona ahlu naarka oo dhan. Maxay khudbada Ibliis ku saabsan tahay? Maxaa ku kalifay Ibliis inuu soo jeediyo khudbadaasi? Ugu dambayn, khudbada Ibliis ma waxaa lagu sheegay Qur'aanka Kariimka? Su'aalaha iyo kuwa kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa ee la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheer garay. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. Waxaa la wariyaa in Ibliis uu ku qudbeen doono maalinta qiyaame dhammaan khalqiga ku jira naarta jahannama, wuxuuna fuuli doonaa mimbar ku yaala naarta dhexdeeda. Ahlu naarka oo dhan ayaa waxay ku eedeynayaan inuu isaga sabab u ahaa Ibliis wax kasta oo ku dhacay. Markaas ayuu Ibliis wuxuu go'aansanayaa inuu u qudbeeyo ahlu naarka, wuxuuna oranayaa sida tan: Ilaahay ballan ayuu idinla galay oo waxay ahayd inuu abaal mariyo qofkii amarkiisa u hoggaansama, qofkii amarkiisa diidana uu cadaabo. ballantiisana Rabbi wuu oofiyey. Anna ballan ayaa idinla galay oo waxay ahayd in aad ku waartaan adduunyada, aakhirana aysan jirin, balse ballanteydii waan ka baxay. Anigu markaan idin luminayay wax awood ah ma idin isticmaalin, waa idin yeeray oo keliya, kadib waad i ajiibteen oo wax kasta oo idin aqriyo waad yeeli jirteen. Anigu waxba ha i canaananina oo dembi oo dhan dusha ha iga saaranina. Idinka iscanaanta oo dembiga idinka ayaa galaye. Idinka igama gargaaraysaan cadaabka Ilaahay oo igama saaraysaan, anna cadaabka Ilaahay idigama gargaari karo oo idigama saari karo. Anigu waxaan ka gaaloobay wax kasta aad Ilaahay u shariik yeesheen. Daalimiintu waxay leeyihiin cadaab daran. Markaas ayuu Ibliis ku caddaysan doonaa nacaybka iyo cadaawadda uu u qabo ilmo nebi aadan, wuxuuna qiranayaa inuu sabab u ahaa dulligii iyo musiibada ku dhacday ahlu naarka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa aayado kala duwan inoogu sheegay in Ibliis uu yahay cadowgeena koowaad iyo in uu bani aadmiga u qurxiyo adduunyada iyo dembiyada kala duwan. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن همزات الشياطين. اللهم أعصمنا من الشيطان ومن وسوسته وهمزه ولمزه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.